SSC Khartoum State walaalayaal talama idin siiyaa aadhaha waxaa idin sheegaya nimankan Mareykanka ayaa beenbeen tababar siiyey dadka sida oo qaabay wax macno lahayn beenbeen la baray BSF ID Puntland oo kala la baray xogaa la baray marka inay Muuse Biixi baa shakalan wato marka waxa sameynaysiin idinka baniyaha waa taqaani dadka si loo baaro iyo dadka soo dhibaateeyo xabsi weyn samaysta jeel kala daala baara ajlad ka duuba alaalka joojiya qirta waxooba ayana ha qirtaan ha ku socoto kii alaalka ayaba ayaga alaal jira soo meel 90 waxay yiraahdeen inay toona la xasuuqa Soomaa kii hala soo celiyo asxaanaha u galinina hawshiina wata abaadka joojiya idinka hebel bay dileen iyo hebel bay ka dhacay wala idinka hawshiina wata idinkana ka ay maartay dhowdi abaad joojiway hal ogaado marka gudiga saddex waxa oran lahaa idinka maamulkii ka mas'uul ka adeejiya dadka deegaanka waxaan gooxinaysiin waxa raga dagaalanayna oo maalinka dadkiina la xasuuqay xabsiga lagu dilayo wax loo dul qaadan kara maaha marka hawshiina wata hawska wata wixiina wata waxa qabatiin saadoontiin ka yeela igeysta meeshaartii la aada dadka waxay xiriirayaan malaha marka hawshiina wata taas ay dooran lahaa mid kale idin sheegay waxay tahay nimankii alaal bay bilaabeen waxay leeyihiin xuduudiyo dhan way naga xirteen meel aan ka baxno malahan awal macnaheedu cambaasho iska doqona iska haysanay oo wuxuu doonsan doono aan ka yeelno oo xogaa lacag inta u dhimay iyo qamri naga mashquul jiray habeenkiina militariga la soo guuri jiray hadda meel aan marna malahan 33 gudi hadii iska burburin ayay waxay taagan yihiin wadan guruusi weeyaan ma wadan anaba hadda aan xukuno xuduudoodu waa xiran tahay iskama soo geli karno ama si fudud ba iskama soo geli jirnaa cambaasho in iska hurduha doqona qamadiisa qaadkiisa markaan siino habeenkii markuu seexdo baabuurna iskama soo guuri jiray asagii baa qabsanay wuxuu ku haysanay marka amin iska doqon waa laakiin meesha hadda maamul bay noqotay xaaladdu ma fiicno dadka naga jooga gooja cadana u maleyn baa qofna ka soo laabanayo laakiin si arintaas baan walba waxa leeyahay TV inta ka hadasheen jidba idin furayna maxaa jid ugu furaysiin idinka miyaasaan baa idin galay war meeshaan adduunyada ma jiro loo dacwoodo adduunyada waxay jecel yihiin mataqaana dadka dhibaateeyo ciqaabo magartay wadinkiisa xuduudiisa ilaalsado marka hawshiina wata Khartoum hawshiina wata hadalada qaarkoodna joojiya waxa weeyaan qaniya ka fujiso si kale oo ma ilbali kartid mana wax ka ilaahay ma adduunyada ka ilaahay ma jiro wax maxabiis ha sii deynina kuwa gooja cad ku jireen ha sii deynina waa niman awalba already waxbay dileen dad wax dilaysa u sii deynaysiin waxbay dileen bay waa dad dambiilayaal maxkamadda la soo taagay waa wiil yar bay dileen carruur bay dileen isbitaalay xasuuqeen mid ay la dhacay magaalada soo deynaysiin marka waxaan oran lahaa wax si deyn leeyahay ma jirto dadka maxkamad baa la soo taagaya adduun markuu dagaalka dhamaado hadhowdii maxkamadda adduunka wax lagu taagi lahaa dadka ku taagay baa loo baahnaa dadka wax dilay baa hargeysa u sii deysaan ninkii idin dilay bariidu ku soo laabanaya asoo baabuur candamila wato oo shacab iska dhigay sidii uu idin dilaya marka waxaan oran lahaa nin wax dilay lama sii daayo dhinaca shisheeyna looma sii daayo dhinaca sokana looma sii daayo sababtoo ah wuxuu isku malaynayaa waxaan beenaysan wax micno lahayn maaha marka hasii deynina 33 gudi ka adeejiya dadka shacabkiina dadka idin shaqeeyo adinka idin ka warsuwayaan amarka siiya maxaa maalin kasta abaxay jaal baa laga baxay hargeyso hal baa la dilay kana maxaa idin ka galay waxa la dilaan xanuujiya ayagana qaniya ka fudud hawshii nabad qof xuduudiyi maxirta wax ku soo gaari kara malaha hadii wax dhibaateeyo wala boqol qof dariiq maray afduubta xasuuqa saaduntii yeelay idin kala ayaga joojinay qaniya ka fudud si kale bani aadam looga cilbeeli kara malaha ammaan kuma siinayaan hawshu way warayaan maamul baan ku sheegteen wax ka jiro malaha maamulkan marka idinka maamul hadaatiin qaabta bara dadka waan wax qaateen maamulada wax qaabaan dhibaatooyin wax qaabaan arintaas gaarsiya 33 gudi iyo jamaahiirta SSC Khartoum State walaalayaal talama idin siiyaa aadhaha waxa idin sheegaya nimankan Mareykanka ayaa beenbeen tababar siiyey dadka sida oo qaabay wax macno lahayn beenbeen la baray BSF ID Puntland oo kala la baray xogaa la baray marka inay Muuse Biixi baa shakalan wato marka waxa sameynaysiin idinka baniyaha waa taqaani dadka si loo baaro iyo dadka soo dhibaateeyo xabsi weyn samaysta jeel kala daala baara ajlad ka duuba alaalka joojiya qirta waxooba ayana ha qirtaan ha ku socoto kii alaalka awalba ayaga alaal jira soo meel 90 waxay yiraahdeen inay toona la xasuuqa Soomaa kii hala soo celiyo asxaanaha u galinina hawshiina wata abaadka joojiya idinka hebel bay dileen iyo hebel bay ka dhacay wala idinka hawshiina wata idinkana ka ay maartay dhowdi abaad joojiway hal ogaado
marka guddiga soddon iyo saddexda waxaan oran lahaa idinkaa maamulkii ka mas-uula ka adeejiya dadka deegaanka waxaan yaa gooxinaysiin waxaan raga dagaalamayna oo maalinkaas dadkiina la xasuuqayo xabsiga lagu dilayo wax loo dul qaadan kara maaha marka hawshiina wata hawska wata wixiina wata waxaa qabatiin saa doontiin ka yeela ii geysta meeshaa ratiin la aada dadkan waxay xeerinayaan malaha marka hawshiina wata taas aad oran lahaa midda kale idiin sheegaya waxay tahay nimankay calaacal bay bilaabeen waxay leeyihiin xuduudihii oo dhan way naga xirteen meel aan ka baxno malahan awal macnihi cambaasho oo iska doqonaa iska haysanay oo wuxuu doonsan doono aan ka yeelno oo xogaa lacag intaa u dhiibno iyo qamri naga mashquuli jiray habeenkiina militariga la soo guuri jirin hadda meel aan marno malahan 33 guddi haddiinaan iska burburin ayay waxay taagan yihiin wadankan wadan guruusi weeyaan maaha wadan anaga hadda aan xukuno xuduud walba waa xiran tahay iskama soo geli karno ama si fudud ba iskaga soo geli jirno ina cambaashe nin iska huduuha doqona qamradiisa qaadkiisa markaan siino habeenkii markuu seexdo baabuurna iskala soo guuri jiray asagii baaba qabsanay xoog ku haysanay marka nin iska doqon u ahaa laakiin meesha hadda maamul bay noqotay xaaladdu ma fiicno dadka naga jooga gooja caddana u malayn mayno qofna ka soo laabanayo laakiinse arrintaas maalin walba waxaa leeyihiin tv-ga intaa ka hadasheen jid baa idin furaynaa maxaa jid ugu furaysiin idinkii milaascan baa ladiin galay war meeshaan adduunyana ma jiro loo dacwoodo adduunyana waxay jecel yihiin mataqaana dadka dhibaateeyo ciqaabo ma garateen wadankiisa xuduudiisa ilaalsado marka hawshiina wata alkhaatimo hawshiina wata hadalada qaarkoodna joojiya waxaa weeyaan qaniya kaa fujiso si kale ooma cilbeeli kartid mana wax kaa alnaaya malaha adduunyana kaa alnaayna ma jiro wax maxabiis ha sii deynina kuwa goojacada ku jireen ha sii deynina waa niman awalba already waxbay dileen dad wax dilaysa usii deynaysiin waxbayba dileen be waaba dad dambiilayaale maxkamada la soo taagan waayo wiilal yar bay dileen carruur bay dileen isbitaallay xasuuqeen mabtacay la dhicin magaaladii say usii deynaysiin marka waxaan oran lahaa wax sii deyn la yidhahda ma jirto dadkan maxkamad baa lasoo taagayaa adduun markuu dagaal ka dhamaado hadhowdii maxkamadda adduunka wax lagu taagi lahaa dadka ku taagi lahaa baa loo baahnaa hadaa dadka wax dilay baa hargeysa usii daysaan ninkii idin dilay beribu idin kusoo laabanaya asagoo baabuur candhameelo wato oo shacab iska dhigaya sidii buu idin dilaya marka waxaan oran lahaa nin wax dilay weligaa lama sii daayo dhinacaa shisheeyana looma sii daayo dhinacaasoo kale looma sii daayo sababtoo ah wuxuu isku malaynayaa waxaanba inaysan wax micno lahayn maaha marka ha sii deynin 33 guddi ka adeejiya dadkan shacabkiina dadka idin shaqeeyo idinka idinka warsugayaan amarka siiya maxaa maalin kasta abahalle jaal baa laga baxay hargeyso heel baa la dilay maxaa idinka galay waxa la dilaan xanuujiya ayagana qaniya ka fudus hawshiina wata qof xuduudihi maxirta wax ku soo gaari kara malaha haddii wax dhibaateeya waa boqol qof oo dariiqa maraya afduubta xasuuqa saa doontii yeela idinkana ayagaa joojinaya qaniya ka fudus si kale bini aadan looga cilbeeli kara malaha ammaanna kuma siinayaan hawsha way wadayaan maamul baanay kuu sheegteen wax ka jiro malaha maamulkan marka idinkaa maamul hadaatiin dee ciqaabta bara dadka waa in wax ciqaabtiin maamulada waa in wax ciqaabaan dhibaatooyin waa in la ciqaabaa arrintaas gaarsiiya 33 guddi iyo jamaahiirta SSC Khartoum State walaalayaal talama idin siiyaa aadhaha waxaa idin sheegaya nimankan maraykanka ayaa dambeyn tababar siiyey dadka si loo oqaaday wax micno lahayn dambeena la baray BSF ID Puntland oo kale la baray xogaa la baray marka ina Muuse Biixi shakalan wato marka waxa sameynaysiin idinka baniyo waa taqaani dadka si loo baaro iyo dadka si loo dhibaateeyo xabsi weyn samaysta jeel kala baara ajlad ka duuba calaalka joojiya qirta waxooda ayagana ha qirtaan ha ku socoto kii calaalka ayaga calaal jiray soo maweyn 91 waxay yiraahdeen inay toona xasuuqa Soomaa kii hala soo celiyo asxaan ha u galanina hawshiina wata alaadaan amaadka joojiya idinka hebel bay dileen hebel bay ka dhacay wala idinka hawshiina wata idinkana ka ay maaragtay dhowdi cabaad joojiway hal ogaado marka guddiga 33 waxa oran lahaa idinka maamulkii ka mas'uul ka adeejiya dadka deegaanka waxaan yaa gooxinaysiin waxaan raga dagaalamayna oo maalinkaas dadkiina la xasuuqayo xabsiga lagu dilayo wax loo dul qaadan kara maaha marka hawshiina wata hawska wata wixiina wata waxaa qabatiin saa doontiin ka yeela ii geysta meeshaa ratiin la aada dadkan waxay xeerinayaan malaha marka hawshiina wata taas aad oran lahaa midda kale idin sheegaya waxay tahay nimankay calaacal bay bilaabeen waxay leeyihiin xuduudihii oo dhan way naga xirteen meel aan ka baxno malahan awal macnihi cambaasho oo iska doqonaa iska haysanay oo wuxuu doonsan doono aan ka yeelno oo xogaa lacag intaa u dhiibno iyo qamri naga mashquuli jiray habeenkiina militariga la soo guuri jirin hadda meel aan marno malahan 33 guddi haddiinaan iska burburin ayay waxay taagan yihiin wadan guruusi weeyaan maaha wadan anaga hadda aan xukuno xuduud walba waa xiran tahay iskama soo geli karno ama si fudud ba iskaga soo geli jirno ina cambaashe nin iska huduuha doqona qamradiisa qaadkiisa markaan siino habeenkii markuu seexdo baabuurna iskala soo guuri jiray asagii baaba qabsanay xoog ku haysanay
marka nin iska dhaqan waa laakiin meesha hadda maamul bay noqotay xaaladdu ma fiicno dadka naga jooga gooja cadana u malayn baan qofna ka soo laabanahay laakiin si arintaas waxaan walba waxaa leeyihiin TV-ga intaa ka hadasheen jid baa idin furayna maxaa jid ugu furaysiin idinkii milaascan baa laydin galay war meeshaan adduunyana ma jiro loo dacwoodo adduunyana waxay jecel yihiin mataqaana dadka dhibaateeyo ciqaabo ma garatay waddankiisa xuduudiisa ilaalsada marka hawshiina wata khaatimo hawshiina wata hadalada qaarkoodna joojiya waxaa weeyaan qaniya kaa fujiso si kale lama cilbeeli kartid mana wax kaa ilaahay malaha adduunyana kaa ilaahay ma jiro wax maxaabiis ha sii deynina kuwa gooja cadda ku jireen ha sii deynina waa niman awalba already waxbay dileen dad wax dileen say usii deynaysiin waxbay dileen dee waa dad dambiilayaale maxkamadda la soo taaga waaye wiilal yar bay dileen carruur bay dileen isbitaallay xasuuqeen